بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. الفرقة الناجية ولا شرح مايو هل كلمة بانكو أرورنا هي نبي النبي عليه الصلاة والسلام تلمامي مركون ولا ويديي من هم يا رسول الله، وهي التي تكون على ما أنا عليه وأصحابي اليوم. marka nabigeenu markuu alfirqa naajiya tilmaamayay magac ma sheegin, midabna ma sheegin, meelay dunida uga nool yihiinna ma sheegin. keliyata wuxuu sheegay manhaj dariiqo lagu socdo. marka alfirqa naajiya dunida meeshay doonta ha uga noolaato, midabkay doontaana ha lahaato. muhiimada waxaa weeye firqadu manhajka ay ku socotay waa maxay? hadduu yahay kii nabiga iyo asxaabta ay ku socdeen, firqada naajiyay noqonaysa ama fardi ha noqoto. markaas alfirqa naajiya xaqa weligiiba lugtool buu iska ahaa. ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati waqaliilu maa hum waqaliilu min cibaadiya shakuur وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. مرك أكثرية أما وحن مجرتك الليلة وإيديسية والحق مع الأقلين. دائما حق واللقطول قد يربانا كتوبا نبي بطائف كعبري الفرقة الناجية لا تزال طائفة كحو إني بطانية إني يرادان مدن ونقون كران مليون وكبضان كران. منهجك أيا معتبر آتي شيخ محمد أوي وكل يدعي وصلا بالليلة والليلة لا تقر بذاك إدعاها أي توغذي إيو وحسكم فلياشي سعاريكتي لبحين أهل السنة والجماعة مقعان براقة وحكم أيال ربي أكتينا حقه وما كالصعودة. ذلك اليوم الحق وهلا تقى يا مركة الفرقة الناجية كوحدة بدباديس آخره أما أدونك قرقار كم موضن إن لوغو قرقارو حق ربي اللوغا قرقارو شافعيوه مسؤول رضا مقعيال كوضولها إن الذين كوبان رضاي واقع النبي قلنا ولا مقعي جري مسلم بوها كاسا القرآن ككويا هو سماكم المسلمين من قبل مقعو مسلم بوها منهجك اللي قدق ما يمحو الكتاب والسنة وها منهجك اللي قدق ما يين الكتاب والسنة معبودك اللي عابودا يألك اللي يجيبوها مطبوعة اللقود دينا يا إمامك ورجوعها النبي محمد كليتوها. مركا الفرقة الناجية أما حلقي النبي يقولون ولا هالنقطة أما ما أنت أين جوجنا هالنقطة أما الدنيا شنطة قارض مركز تاوغا نولاتو أما مذهب كيدون تعالى الفرقة الناجية وقول ودذي النبي وهي هيس ودذي النبي قلنا تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا ألا وهو كتاب الله وسنتي. الله كتاب كيساس قرآنك أسوى البلو يقانو أتفترا إيا سنة النبي وكو بيانيي لبدا قفك هايستا عقيدة وعملا وتعلما وتعليما وتحكيما وتأدبا قفك عقيدة نمو هايستا كتابك يا سنة لقن أهانا وهايستا فقه أهانا وهايستا أسلوب نما وهايستا أنشح نما وهايستا مقع نما وهايستا الفرقة الناجية واتا مرقا قفك وحيسكو فلايا انت قورتي هكا قالوا أدبادو ما تنتي. سؤال شكوعتا هي وحاي تهي waa lagama maarmaan in la helo midnimada dadka muslimiinta ah, laakiin midnimada baan raadinaynaa maxayse tahay midnimadaas ususkeeda keebaas la hormarinayaa caqiidada iyo tarbiyada ummadda marka hore in dhisa si loo helo hadaf la isku waafaqsan yahay marka hore mise iyada baan isu keenaynaa ka bacdi ayaanu u howlgalaynaa wixii kale.
su-aashaasi aan ku celiya mar labaad sheekh cumar waxa uu leeyahay qofka soo qoray su-aashatan siday u qoran tahay midnimada ummadda in la helo waa laga maarmaan yacni markaan soo khulaaseeyo laakiin xaggee baanu ka bilaabaynaa midnimada ummaddaas xaggee ka bilaabaynaa midnimada ummadda haddii dadka la mideeyo iyadoona caqiido iyo tarabiyo ahaan aan loo midayn marka hore sida tajruba ahaan lagu arkayna arrintaasi ay ummado badan dhibaatooyin uga yimaadeen markaasi miyaanay fashil keenayn in ummadda la iska mideeyo iyadoo aan tarbiyada iyo caqiidada marka hore laga midayn waa waadix baan filaya بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وبعد midnimadii waa laga maarmaan xagee laga bilaabayaa wasmacuu macii qowla rasuuli sala allahu calayhi wasalam nabigeennu macaad ibnu jabal buu diray yaman buuna u diray wuxuuna ku yidhi faawala maa tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaaha ila allah midnimadu waxay ka bilaabataa tawxiidka waxa lagu midoobayaana waa isaga marka wixii laa ilaaha ila allahu yiraa bilowga tawxiidka wey kelimatu tarbiya culamaau tarbiya ama muslimiin ama gaalo waxay noqdaanba tacriifkeeda waxay ku sheegaan wax la aaminsan yahay inuu adduun iyo aakhiraba wax ku ool yahay oo waxaa weeye dadka lagu barbaariyo oo maskaxda iyo maanka loo geliyaa tarbiye la yihaa fahiya acamu min atacliim tarbiyadu ka guda weyn tacliimta watacliimu juz-un min atarbiya waxbarashadu waa gobol ka mida tarbiyada watarbiyatu takhusu alkabiir waاsagiir wa kuli axad marka tarbiye la yihaa qof weyn iyo qof yar waxaa weeye dadkii oo wax la aaminsan yahay maskaxda iyo maanka loo geliyo kolkaa tarbiyadu cala tawxiid bidaayada midnimadana cala tawxiid marka canaasirta midnimada tawxiidkii waa u sahlanayd rabbi subxaanahu wa tacaala inuu dadkaa tirada badan iyo makhluuqa u uumay uu qoloba u sameeyo tawxiid gaaray ku ashaataan laakiin mid keliya taa laga dhigay tan iyo goorma mundu bad'i lkhaliiqa kolkii uunka la uumay ilaa yowmina haada tawxiidku waa mida laba maaha waa kii rabbi qur-aanka meelo badan ku yidhi wamaa arsalnaa min qablika min rasuuli ilaa nuuxii ilayhi annahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun waa kii rabbigeen nabi muuse ku yidhi inii ana allaahu laa ilaaha ilaa ana facbudnii nabi muuse alla ku leeyi waa kii rabbigeen yidhi markaad rususha kulli mid kastaba la soo sheegay walaqad arsalnaa nuuxan ilaa qowmihi faqaala yaa qowmi icbudu llaha maa lakum min ilaahin hayruh والمعنى لا إله إلا الله وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ومعنى لا إله إلا الله وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ومعنى لا إله إلا الله وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت idan mar hore iyo mar dambe midnimadu tawxiidkay ka bilaabataa waxa lagu midoobayana waa cala tawxiid haddaan midnimadu tawxiid ku salaysnayna waxa kama jiraan wabillahi tawfiiq